duruuf walba oo inagu timaada ama maanta inala soo daristana waxaanu kaga bixi karaynaa waa isku duubni iyo inaynu joogtayno wada tashiga iyo wax wada lahaanshaha iyo is-ilaashiga bulshada gobolku hal aabbay wada leedahay aabbahoodaasina waa nabadgelyada hadday tahay madax dhaqameedkii iyo guurtidii haddii ay tahay dhalinyaradii haddii ay tahay haweenkii waxaan idinka raali gelinaynaa intaanu idiin soo galnay baa annagunbaa hadlayno idimaanu dhegaysan waxaanu isleenahay 6 casho idinku soo hadal dhammaysateen annaguna iminkuun baanu idiin nimi aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa hogaamiyeyaasha mashruuca oo ay ugu horeeyaan macallimiintiinan agaasinka fiican idiin sameeyey tababarka wanaagsanna idin siiyey sidoo kale sidii uu sheegay Mustafa waxa iyaguba wasaaradda arrimaha gudaha aanu nahay markaad asluubta iyo ku darto taliyaha militariga waxa iyaguba waxaanu nahay guddidii nabadgelyadaanu nahay markaanu iminka ku nimiyo guddida nabadgelyaduna waxay hoos tagtaa arrimaha gudaha dhammaantayo farxad bay noo tahay inaanu idinkala soo qayb galno hawshiinan waxaa sidoo kale farxad noo ah in baryahan dambe tababarada xalinta khilaafaadka ee mashruucani ku saabsan yahay ay aad inuugu soo badanayeen dadaal badan aanu galnay inay joogto inoo noqdaan oo ugu yaraan bil walba la helo aqoon kororsiga waxa mahad ilaahay ah in maxadkii xalinta khilaafaadka ay jaamacadeenu partner la noqotay isla markaana fiil kamida fiilasha lagu barto maanta uu kamid yahay xalinta khilaafaadka hooyooyinka baran kara aabayaasha baran kara dhalinyarada baran karta cid walba waa u furan tahay inay bartaan mar walba oo aynu ka koranaano dhinaca xalinta khilaafaadka waxaynu noqonaynaa bulsho u hoggaansan dhinaca horumarka annagoo ku degdegayna xaflad weyn oo qalin jabintii maanta ardaydeena kelmadda aan jecelahay inaan idinku booriyaa waxa weeye gobolkan Sanaag dad badan oo kala duwan baa ku nool bulsho badan oo kala hayba oo kala magaca baa ku nool waxa kaliya ay ku noolaan karaan ku wada joogi karaan waa nabadgelyo bulshada gobolku waxay hormuud ka ahaayeen barnaamijyadii lagu dhidbay ama lagu taagay qaranka Soomaaliland guud ahaan gobolka Sanaag waa yeelkiisa iyo madax dhaqameedkiisa oo isku duuban baa nabadda maanta aynu ku fadhino sal u ahaa oo bays u ahaa oo bilaabay nin walba madax noqda ama gobolkan madaxa ka noqdo ama degmada madaxa ka noqdo wuxuu ku khasban yahay inuu ilaaliyo dhowro isla markaana raaco wadadii ay dhigeen awoowayaashii naga horeeyay iyo aabayaashii naga horeeyay duruuf walba oo timaada oo inagu gadaaman waxaanu kaga bixi karnaa waa isku duubni intaan gobolkan gudoomiyaha ka ahaa duruufo badan oo kala duwan oo adag oo culeyskeeda laba igu soo maray waxaan kaga baxay mar walba isku duubnida guddida nabadgelyada oo taliyayaasha kala duwan ee ciidanka iyo maayarka caasimaduba ay yihiin niman khibrad iyo waayo-aragnimo iyo waayeelnimoba leh duruufihii u dambeeyayna waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa guddida xoojinta nabadgelyada ee idin hor fadhido ee uu gudoomiyaha ka yahay Maxamed Cabdimaalik oo wax badan la'aantood aan noo qabsoomeen marna duruuf walba oo inagu timaada
ama maanta inala soo daristana waxaynu kaga bixi karaynaa waa isku duubni iyo inaynu joogtayno wada tashiga iyo wax wada lahaanshaha iyo is-ilaashiga bulshada gobolku hal aabbay wada leedahay aabbahoodaasina waa nabadgelyada duruuf walba oo soo korodha waxaan idinkula dardaarmayaa inaanayna saamayn duruuf walba oo hareeraha ama gobollada dariska ka timaadana waxaan idinkula dardaarmayaa inaanay idin saamayn waxaan idinka dardaarmayaa oo idinka digayaa hadallada cunfiga leh ama dadka kala kaxayn kara inaynu iska ilaalino isu soo dhaweyno bulshadana aynu ku hagno waxa halkan ka barateen oo ah inaynu khilaafaadka dhexdeena aynu inagu ilaashano hadalka waan dheereeyay waxaan doonayaa inaan ku gabagabeeyo aragtiyaha xalinta khilaafaadka marka laga hadlayo maadaama aynu nahay gobol da'weyn oo ay degan yihiin dadyow kala duwan oo kala dhaqan isku dhaqan ah isku diin ah isku af ah laakiin ku kala duwan dhinaca reeraha waxaynu u baahannahay inaynu mar walba ku shaqeyno sulxa inaynu sulxa ku shaqeyno bulsho walba horumar diyaar u ahna taasaa u ah maxaan ku raahdaa wax ay ku horumaraan ma doonayno inaynu soo qaadano fikrada khaldan ee ah aynu isku baaba'no ama aynu isku dhammaano ama yaanay waxba iskaga keen hadhin waxaan u malaynayaa inuu shumshan theory ahaa fikirkii ay ka qaylin jireen reer galbeedku ee ahaa aynu isku baaba'no shumshan waxaa la yidhahdaa nin xoog weyn buu ahaa oo awood weyn ilaahay siiyey oo awooddiisu ay khayral-caadi ahayd dabadeedna wax walba cagtuu marin jiray berigii dambey tashadeenoo waxay dhahaan waryaa sidani dee si maahee ninka aynu qabanno waxaa la awooddu timahay kaga jirta waa la asaasineed gareeyo timii baa laga xiiray markii timii laga xiiray baa awooddiisii daciiftay waxay idhaahdeen indha aynu ka ridna haddaba inugu awoodaysanay dabadeedna mar walba waxaa la samayn jiray timahana waa laga xiiri jiray meelna waa lagu hayn jiray isagoo indhala beri dambe la yari laaway buu soo timaystay timii baa u soo baxo awooddii baa u soo noqotay awooddii markay u soo noqotay macbad sidan oo kale ah qolada reer galbeedka kristanka iyagoo fadhiya oo cibaadaysanaya oo ay axad tahay axaddoodii uunbuu kaabadihii isugu garaacay macbadka iyagii iyo isagiiba waa baaba'een marka waxay dhahaan shumsham theory waxa weeye aynu isku baaba'no macnaha yaan waxba inaga hadhin innagu fikirkaa yaan waxba inaga hadhin weligeen waxaynu ka digtoonaanaynaa inaynu ku shaqayno waxaana bays u ah oo fikirkaasoo kale keeni karaa waxa weeye qabyaaladda weeye qabyaaladda aynu ka fogaano aynu u guurno inaynu maxaanku idhaahdaa saddexda qaab ee bulshada islaamka ah nebi maxamed jideeye calayhi salaatu wasalaam isla markaa cilmiga maadigaana lagu dhigto taasoo sulux ah ama cafwi ah ama xukun ah oo dee maxkamadaha iyo maxaanku idhaahdaa waxa aynu dastuurka aynu haysanaa uu xukumayo saddexdaa qaabba waa waxaynu wax ku xallin karno aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahadnaqayaa waxaana insha allah bidmillaahi kariim rajaynaynaa inaynu inagoo isku duuban barwaaqo iyo badhaadhe aynu u dabaaldegno dee waana arki doontaanoo maayarkii magaaladu shahaado weyn inaynu u samayno mudan yahay maanta 4 kilomitir iyo badh waddaa baanu soo furnay kuwa kalena waa u soo socdaan maanta Somaliland degmooyinkiisii kama jirto degmo
bisha gudaheeda inta laga qabtay isagana waa u ducaynaynaa waana u hambalyeeynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin